لله رب العالمين. ما توحى كايا هلو topic ku saabsan sida wax akhriin kara waxaan jecelahay inaan kula wadaago wax walba maskaxdayda ku soo dhacay oo fiican oo wanaagsan inaan kula wadaago oo kula share gareeyo wixii wanaagsan aan ka qaato wixii wanaagsan aan ku sheego ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu qool naas xusna dadka wanaagga u sheega wixii wanaagsan oo dhan inuu ku sheego waa fiican tahay sida wuxuu khayrukum naas man fa'a min naas dadka waxa ugu fiican qofka anfaca dadka marka waxa ku sheegaya maanta hal mowduuc aan islaha maskaxda tuujiyay baadiga saambay positive kula tahay dad ay negative si kala u tahay adigu positive bal u sheeg halka mowduuc waani hore kugu sheegay wax weeyaan wasan wax akhri kara ama seen waxaan dhigtay aan dib ugu noqon kara ama oo akhri kara wixii waxaan qaadayo kaliya wasaan anigu wax sameeyo ayaan ku sheegaya ama saan dad ka soo xigtay ayaan baan soo ururiyay sidii wanaagsaneed ee ugu fiicneed ayaan ku sheegay wax ku qaadan doonaa halkan toban shan qodob oo muhiim ah shanta qodob waxaan ku sidaa boxka yar ee halka u fiican waan ku soo ururiyay wixii oo dhan sidii bal asxaabtaada waxba kala tagi iyo dadka sida wax akhriyaan waxaan ku sheegaya hal qodob oo sameeysa waxay aad u muhiim tahay noloshaada qodobada koowaad wax walba qodobeysan oo fiican tahay oo ka saari doona waraqda iyo boxka bal boxka ka dhigi doona wixii meesha ku dhex jiray ayaan ku sheegi doona ugu horeysa box ka ugu horeeya qodobka koowaad weeyaan waxa tagtaa meel aad u fiican oo kugu soo baxaysa noloshaada inaad wax ku akhrin karto oo free position aad fiican meel rest iyo oo ku nasan karto goobta marka tagto waxaad isku daydaa bal inaad meeshii aad tiraahdo maxaad ku akhri kartaa marka bal in isku daydid inaad quraan laba page ama wax ka badan aad akhri karto inta marka tukato laba ragcadood tuko ilaahay wuxuu leeyahay aadeen xusee iyo xusa marka kulli marka soo dhisato oo qalbigaaga nadiif noqdo أن تجعل القرآن ربيع قلبي وتشعيا أو نظيفيا القرآن كهذا اسكت يدو مركز قلبي جا يودجن أثر تساق هذا بوك مركز ساق على طب قدر كاستحها بوك ساق على واسكتي إن سمرايسن كرين كتو أنت تسوق أخلي ذا مركز مركز طلبان من كل نقو أو واحد اسكتي ذا ميري أعطك إن تكو قرطو كدر inaad soo qaadato qalin iyo waraaq marka hore soo qaadayso buugga marka wixii kugu adkaa aad qorato bal isku day inaad inta kalena aad xifdido ku celceli oo saddex jeer ku celceli waad fahmi kartaa qodobka saddexaad wuxuu marka intii soo qaadato ku qoro waraaqdaada oo jeebka gasho meel kastoo joogtana akhriso qodobka afraad ayaan maraya ma jecelahay qodobka afraad wuxuu marka wixii aad isku keento samaysan karayso isku keento waxaad isku daydaa inaad iska dhageysato waan xifdiyaa waxa inaad iska dhageysato oo wixii inaad xifdiday oo kalaaya aad isku daydo markaad saa samayso waxaad isku qaadaa tashanaad qodobka shanaad imtixaan iska yarqa imtixaan keliya wixii inaad qaado tusaale ahaan haddaad tarbiyo qaybayso ama aad qaybso quraan ku tuko shanta waqtiyood mid ka mid ah adoo haya wixii mid iloobis haddaad laakiin aad isku daydo adigoo xiftii aad iska tagto waxaad laga yaabaa in ay shortiga inay ku dhacdo longiga inaanay ku dhicin markaa ku tuko mar walbana isku day inaad ku celceliso waxaa kusoo gabagabeynaya inaad wax akhrida aad bay muhiim tahay wax akhrisku waa sida jaajuur guri oo kale waa jaajuurka guriga marka la dhisayo haddaad sii kordhiso gurigaasoo sii dheeraanaya oo guriga wuxuu kuu noqonaa mid qurux badan waxaan kusoo gabagabeynaya waxaan iisoo gudbinayaa anigoo ah kiise faarax weyn waxaad ka heli kartaa fiidiyowadan wax ka badan motorooyina raameel tube ama kiise faarax weyn يا فتنة خلابة منحتها محبتي فكلها براءة تقر منها مغلتي بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي بنيتي إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي